cabsi ayaa ka jirta guud ahaan Yurub waxaa ka socda doorashooyin walaac badan dhaliyay mana jirto cid dib u haranaysa awoodda axsaabta midigta fog ayaa talada ku soo noqonayay kadib markii ay la wareegeen kuraasta dhowr dowladood waqtigu waxa uu ku soo galay baarlamaanka Yurub iyadoo laga walwalayo muhaajiriinta iyo islaam nacaybka maxaa ka dhacaya qaaradda maxay madaxdu uga soo horjeedaan doorashada shacbiga ah ee xilligan ku soo dhawaada Yurub cusub doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ayaa qabsoomay dhawaan waxaana si degdeg ah looga dareemay dalal badan oo qaaradda ah in si ka sarreysa saadaasha ay soo ifbaxayaan axsaabta midigta fog ee ku orkacsada ama lagu xusho nacayb isirsooc kala fadliyeelid ummadeed iyo wax walba oo ay la dhici og yihiin kuwa dalalkooda loogu tagay inkastoo ay weli awood ahaan jiraan axsaabta shuuciga iyo dimuqraadiga oo dib u cusboonaysiinayaan aqlabiyadda haddana soo bixitaanka cusub ee midigta fog ee dalal badan ayaa walaac abuuray dalalkaas waxaa hormuud u ah Faransiiska iyo Jarmalka oo u arkay natiijooyinka doorashooyinka baarlamaanka Yurub ay u yihiin digniin qaar waxay sheegeen in natiijooyinkaas ay yihiin kuwa ugu xun taariikhda qaaradda ilaa iyo haatan Jarmalka oo ahayd xudunta dagaalkan 10 sano ka hor iyadoo ay ugu wacnayd qolyaha midigta fog doorashooyinku waxay muujinayaan khasaare weyn oo soo gaaray xisbiga talada haya ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha saadaashuna waxay muujinaysaa in xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany oo helay 16% codadka iyadoo ay sare uga kaceen doorashadii 2019 oo ay heleen 11%. natiijadan ayuu hogaanka u qabtay Jarmalka iyadoo xisbiga talada haya uu ku xigay 14% iyagoo ka hoos maray doorashooyinkii hore oo ay heleen 15.8% oo ay hogaanka ku hayeen Faransiiska sawirku waa uu ka duwan yahay Jarmalka xisbiga midigta fog ee Faransiiska oo ay hogaaminayaan Jordan Bardella iyo Marine Le Pen ayaa ku guuleystay doorashooyinka baarlamaanka Yurub waxa uu xaqiijiyay natiijo taariikhi ah oo gaari karta 32.5% marka la tiriyo codadka natiijadan xisbiga midigta fog oo helay ayaa 2 jeer ka badan codadka xisbiga Macron oo ah xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada wuxuuna kaalinta labaad ku galay 15.2% kaalinta saddexaad waxa galay xisbiga bulshada dimuqraadiga ah oo helay 14% natiijooyinkaas waxay dharbaaxo weyn ku noqdeen Macron iyo xisbigiisa inkastoo oo aysan hogaamin doorashadii 2019 haddana xisbiga midigta fog ayaa markaas ka sareeyay 1% laakiin maanta waxay heleen laab codadka xisbiga Macron markii la shaaciyay saadaasha Bardella ayaa dalbaday doorasho baarlamaani ah oo Faransiiska ka dhacda wuxuuna yiri madaxweynuhu ma iska indhatiri karo fariinta ay dirayaan Faransiiska waxaan dalbanaynaa in la tixgeliyo xaaladan cusub ee siyaasadeed oo loogu yeero shacabka Faransiiska in loo qabto doorasho baarlamaani ah oo cusub kadibna Macron ayaa si degdeg ah u soo baxay isaga oo ku dhawaaqay kala dirista baarlamaanka Faransiiska iyo qabanqaabinta doorashooyin degdeg ah wuxuu ku sheegay bayaanka in natiijooyinka doorashooyinka Yurub aysan ku qanacsaneyn xisbiyada u ololeeya qaaradda oo ay ku jiraan xisbigiisa xisbiyada midigta fog ayaa ku soo kordhay Faransiiska kordhinta qowmiyadaha iyo dadka ka soo horjeeda waxa loo arkaa khatar weyn oo ku gudban Faransiiska iyo Yurub iyo kaalinta Faransiiska ee Yurub iyo adduunka kala dirista baarlamaanka iyo ku dhawaaqista doorashooyinka degdega ah waa caqabad cusub oo hortaala Macron iyo xisbigiisa ee Paris si ay u cadeeyaan awoodooda inay soo celinayaan dheelitirka taasoo u muuqata mid adag in la gaaro dalka Holland xisbiga midigta fog ayaa wuxuu galay kaalinta labaad isagoo helay 17.7% halka dalka Hungary-na uu ra'iisul wasaarihiisa ku baaqay inuu u weecanayo midigta wadanka Austria sawirku waa uu ka duwan yahay Faransiiska iyo Jarmalka halkaas midigta fog ee Freedom Party ayaa hogaanka u qabtay tirinta codadka isaga oo helay 27% codadkii wadanka waa markii ugu horeysay ee xisbiga midigta fog ee Austria uu ku guuleysto codadka baarlamaanka Yurub uu dalkaas ku leeyahay dalalka kale kororka tirada codbixiyaasha u weecanaya midigta fog ayaa ahayd muuqaal taageerayaashoodu u arkeen doorasho taariikhi ah laakiin waxay ahayd musiibo ku timid xisbiyada qaar ee haya talada wadamada qaaradda kororka midigta fog oo loo arko mid taariikhi ah gaar ahaan marka la joogo baarlamaanka Yurub dhawaantan waxa la filayaa inuu si weyn u saameyn doono dalalka Yurub oo dhan waxa si cad loogu yaqaan xisbiyada midigta fog inay ka soo horjeedaan muhaajiriinta iyo muslimiinta sidaas darteed waxa la filayaa in siyaasadda midowga Yurub ay isbedesho iyadoo la tixgelinayo muslimiinta iyo muhaajiriinta gaar ahaan dalalka ay ku jiraan tiro badan sida Jarmalka, Faransiiska, Spain iyo xataa Talyaaniga
doorashooyinkaas waxay keeni doonaan sharciyo cusub oo aad u adag oo lagu adkeynayo helitaanka deganaanshaha iyo dhalashada. tusaale ahaan musharaxa xisbiga socialist ee Faransiiska Raphael Glucksmann oo khudbad u jeediyay taageerayaashiisa ayaa yiri waa waqti adag, midigta fog ayaa kaalinta koobaad ka galay dalal badan oo Yurub ah, waxay doonayaan inay burburiyaan hay'adaha Yurub. taasi waa hadafkooda, laakiin waan la dagaalami doonaa maalin kasta heer Yurub iyo mid Faransiisba annaga oo ku culaadinayna. saadaalayaashu waxay leeyihiin tani waxay sababi kartaa burburka midowga Yurub. guusha midigta ayaa adkeyn doonta helitaanka sharciyo cusub oo ka yimaada dawladda sida siyaasadda caafimaadka. midigta waxay doonayaan inay joojiyaan gelitaanka dalalka saboolka ah ee ku biirida ururkooda sabab badan awgood sida culayska dhaqaale iyo ka istiraatiijiyadeed iyo sidoo kale dhowrsanaanta. waxaa jira cabsi weyn oo ku saabsan xakamaynta siyaasadaha iyo hamiga midowga Yurub ee hore. midowga Yurub wuxuu muddo dheer lahaa rajo weyn oo ah inuu ka hormaro dunida marka loo eego deegaanka. codbixiyayaasha qaaraddu waxay ka walaacsan yihiin qarashka beddelka cagaaran oo ay u arkaan mid dhib badan u leh malaayiin dad ah oo Yurub ku nool. midigta fog ayaana la qaadatay aragtidaas. tani waxay carqaladayn doontaa mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee midowga Yurub sanadihii la soo dhaafay oo waxay dib ugu celin doontaa meeshii ay ka bilaabatay. kororka midigta fog ee baarlamaanka Yurub ayaa saameyn weyn yeelan doonta marka loo eego guusha xisbigaasi gaarka ah ee qaaradda. codadka xisbiga midigta fog ayaa ku sii kordhaya baarlamaanka Yurub iyadoo loo arko khatar weyn. waxaa laga yaabaa in tallaabooyinka Faransiiska ee arrintan iyo walaaca Macron ay yihiin kuwa ugu daacadsan waqti xaadirkan. kororka midigta wuxuu keenayaa isbeddel weyn oo Yurub iyo adduunka ah, waxaana saameynta ugu badan ay gaaraysaa dadka magangalyada u raadsada sida muslimiinta, madowga iyo mujtamaca kale ee saboolka ah ama sababo loo qaateen ah ay wadamadooda ka salkiciyeen. waa Abubakar Maxamed oo idin leh la socodkiina ayaad ku mahadsantihiin. ha moogaanina inaad nagu soo biirtaan talana ku biirisaan Tifaftir Media. intaan dib u kulmayno nabad iyo warsan.